السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa baahinta BG Media Sultan Ahmed Maxamed Colhaye warbaahinta kula kulmay magaaladaasi Berbera ayaa halkan uga diray hambalyo iyo bogaadin shirkii ka dhacay magaaladaasi Djibouti ay kala hogaaminayeen labada wafdi madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ku bogaadinaya fadhigaasi ay isugu yimaadeen ee uu markaasi gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo arintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay sultaanku inay cadowga Soomaaliland ay ka xun yihiin arrimaha halkaasi ay ka bilaabeen guud ahaan shirkaasi ballaaran ee ay markaas isugu yimaadeen saddex geesoodka ahaa ay isugu yimaadeen labada dhinac waa kan isagoo arintaasi ka hadlaya Sultan Salmaan ka bogo warbaahinta BG Media. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا ودن إلهي باله caafimaadka iyo nabadgelyadan qaaliga ah in siiyay hadaynu nahay ummadda islaamka khaasatan ummadda geeska ku nool anigoo ah Sultan Ahmed Maxamed Colhaye Sultan Salmaan waxaan halkan maanta ka bogaadinayaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweyne Soomaaliyeed madaxweyne ummadan u soo baxay Soomaalida oo waqti badan geliyay inay wax noqoto madaxweynaha geeska ayaan idhahaa anigu waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay gogosha qiimaha leh ee aad fidisay ee maanta isku soo dhaweynaysa laba ummadood oo walaala ah laba dowladood oo wax weyni ka dhaxeeyo dal iyo dadba uu ka dhaxeeyo oo maanta saddexdiinii qiimaha lahaa geeska iskugu xigay haday tahay dowladda Somaliland iyo haday tahay dowladda Djibouti iyo haday tahay dowladda Soomaaliya inaad si qiimo leh aad saddexdiin u wada fadhiisataan oo adigu gogosha fidiso oo aad isku soo dhaweyso labada ummadood iyo labada dal ama saddexda dal aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa heshiiskaas maanta halka ka dhacay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaananu leenahay waa heshiis in badan la diidanaa inay dadku u wada hadlaan siday yihiin oo dagaal badan lagu qaaday oo la doonayay ummadahani inay kala fogaadaan dowladahani inaanay waxba isku noqonin in badan laga shaqaynayay laakiin waxaad maanta ku guulaysatay inaad saddexdiin oo kaliya wada fadhiisataan ood isku soo dhaweyso saddexda dowladood ee walaalaha ah ood weliba ka odayayso inaad labadan dowladood ee intii dambe la diidanaa inay wada hadlaan inay wanaag sameeyaan inay wax wada qabsadaan waxaynu la soconnaa ninkii iminka meesha laga bedelay inuu siyaasaddiisa ay ka dhammaan weyday xataa wanka maanta Soomaalidu caamka ku tahay ee ka wada dhaxeeya Mindoolow ilaa iyo Lowyacaddo wankaasoo ah meesha aynu ku suntannahay ee resource-ka aynu leenahay ee aynu caamka ku nahay ka mid ah isagoo weliba dhibaatooyin badani haystaanoo qaab dhaqaalaheennu iyo qaabkaynu u ilaalino xoolaha oon qaabka iminka maanta caalamka ka shaqaynaya aan ahayn oo awalba wankaa dhibaatadu haysatay ayuu siyaasad geliyey waynu ogeyn caqabadaha iyo dhibaatada u geystay ganacsatadii ka shaqaysanaysay hawsha iyo xiriirkii aynu leenahay dalalka inaga qaata xoolaha waxa kaloo aynu ogeyn inuu caqabad u dhigay ama uu isku dayay inuu xumeeyo xiriirkaynu la leenahay dowladaha caalamka oo wax kooban ku caawiya Soomaalida hadday tahay iskuulaadka oo dib loo dhiso iyo hadday tahay xanaanooyinka oo ay wax ka qabtaan oo wax badan oo kale oo dalka iyo dadka wax u qabta aan qabanin intiina wuxuu isku dayay in iyadana uu caqabad u sameeyo oo dadka sii kala fogeeyo laakiin waxa alxamdulillah inuu Ilaahay maanta nin ka wanaagsan oo dal ahaan iyo dad ahaan iyo ummad ahaanba jecel
inay ummaddani qiimo yeelato ummaddan wixii ka dhaxeeyey ee walaaltinimada ahaa ee dowladnimada labada dal ee walaalaha ah ee xigtada ah maanta nin fahansan oo ka shaqaynaya isaga iyo ummaddu ka soo jeedo ee beelweynta qiimaha leh ee hawiye waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xasan sheekhna inuu aqbalay waxaan kaloon halkan ka bogaadinayaa madaxweynaha annaga ana matala sida khaaska ah madaxweyne muuse biixi oo isagana wixii ummaddiisa iyo dowlad maxaanku dhaha dadkiisa u igmadeen oo ahayd wax kasta oo midnimada somalilan iyo shacabkeeda dan u ah ka shaqaynaya oo ka ilaalinaya caqabadaha dad badan oo xumaanta somalilan jeceli ay wadaan inuu maanta wixii lagu heshiiyey ee dowladdeenna hadday tahay golaha wakiiladu ay oggolaadeen ee ahaa wada hadal laba dowladood inaynu maxaanku idhahdaa la galno soomaaliya madaxweynahana waan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxaanan leeyahay heshiisyadaas ha la ilaaliyo aan wada hadalla waa aan heshiino ha laga shaqeeyo shacabka dhibaataysan ee muddada badan dhibaatadu haysatay hadday tahay shacabka soomaaliya iyo hadday tahay ka somalilan laftiisa oo aqoonsi la'aan iyo lagu dilay cadaadis inay maanta u baxaan oo madaxweynaha jabuutina sidaa uu daacadda uga yahay ugu sii wado oo maanta aynu ku dadaalno ummaddana tusno inaynu dad walaalaan nahay laba dowladood oo walaalaan nahay wax badan inaga dhexeeyo waxaynu ku kala maqan nahay wax sahlan yahay xuduudaha caalamiga ah ee adduunyadoo dhan u dhexeeyana uu u dhexeeyo laakiin ummad qaybsantay oo walaala ah oo gumaystayaashu ay kala qaybiyeen un inay yihiin xadadkuna tixgelintooday leeyihiin haddii aan ka mid ahay guddida isxilqaam oo in badan ka shaqaynaysa geeska u dhex socotay inay ummadaha walaalnimadooda ka shaqayso iyo in xuduudaha la ilaaliyo oo aan la samaynin xuduudo qabaa'ila waxaan u malaynayaa guushaasi inay midhodhalkeedii taniba ka mid tahay oo maanta aad iyo aad ay noo qiimo gelinayso inay nala qaateen madaxweynayaashii aanu matelaynay aynu shacabkooda iyo salaadiintooda iyo ummaddooda ahayn inay iyaguna si fiican noola qaateen oo annagu wacyigelin bay naga ahayde iyagu si ficila ay u galeen hawsha waxaana leeyahay soo dhowaada hawsha halkaa laga sii wado ummadaha wixii xanafa ee kala dhex taalla iyo cuqdadaha la isku gelinayo ha laga daayo xuduuduhu waa kuwaas xuduudo shacab ama qabaa'il samaysmi maayaan adduunyaduna ma oggola geeskana ka shaqayn maayaan aad iyo aad iyo aad waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga kulankaa qiimaha leh ee uu gogosheeda leeyahay madaxweynaha jabuuti waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa halkaa ka sii wad shacabka somalilanna ha soo dhoweeyo iyo shacabka ummadda soomaaliyeed dhammaantood meel kastoy joogaan wixii isku keen soo dhoweynaya dad ahaan ee iskeen fahansiinaya ee ka bixinaya cadaawadaha gacanku samayska ah ee dadka barwadaan iyo waxaana lagu eedaynayo oo aan ahayn xaq oo ah soomaali diid in badan baan ka hadlay soomaalinimadu annagay naga bilaabantaa annagaanay nagu dhammaataa waxaa ku tusaya doo calankii aanu qaadanay 60kii 7 cashaanu diidnay inuu halkan sii yaallo waxaan ugu talagalnay inuu 5tii dowladood ee gumaystuhu uu kala xukumayey ama talyaani ha noqdo ama kii annagana xukumayeyba ha noqdee inaanu xuduuddooda midayno awoodda magacaas ay leedahay soomaaliyeedna aanu meel iskugu keenno tiina dagaal badanna uu naga qabsaday dowladnimadayadii iyo wixii aanu filaynayna waanu ku weynay sidaa awgeed ma nihin soomaali diid ma nihin dad dadkooga ka tegaya ama neceb balse waxbaanu soo dhowaynaynaa oo aanu ku dadaalaynaa in ummadda aanu walaalayno geesku inuu nabadgelyadiisa ka shaqayno waxaanan leeyahay dhammaan dadku sidaa ha u fahmaan waxaa laga shaqaystaa oo ama howlahan fidiya yutuubyo ninkaa cadaawadda samaynaya uu samaystay oo uu maalgeliyo
iyo shacab wixii la yidhaa un qaata oo dalalka geeska ku kala nool ayaa waxaa ku hadla